qof hadduu muslim yahay mar kasta waxaa laga filayaa wadamadan yurub iyo america haddaan muslimta waa la weydiinayaa ha bishee ku jirta hada islamic calendar aa tira ma aqaani xogaa yara ceeb yaxyaxa weeyaan maanta mid baan weydiiye ku yidhi bishee ku jirta wuxuu yidhi juun weyna soomaaliya wey waxaan ku yidhi maya bilaha muslimka anuu bilaha muslimka ramadaan baan kaa aqaanaa buu yidhi waa runtiis badanaa nooma qorna laakiin waa in la bartaa sidaa daraaddeed inaad bilaha muslimka baratid sanadka iyo faa'iidooyinkiisa kala baratid bilaha xurmada la barato maalmaha faa'iidada la barato waxaa ku jira khayr fara badan maxaa u dan leeyahay hadda waxaan ku jirnaa bisha loo yaqaano zako mataqaanaa zako soomaalida waagi horeeto iyo haddeerba magaca soomaaliya bilu leeyihiin soonfur iyo seetaal iyo arafa iyo zake iyo soo taqaanaan marka bisha sanadkooda yahay islaamka bay zakada bixin jireen bisha waxa leeyahay muxaram waa bisha kooda muslimka sanada muslimka ayaa markaa zaki ula bixeen say u aadsadaan in zakada bixiyaan mana xumaa dadkana way leeyihin caadooyin magacyo gaara waxyaaba ma laakiin waxaa dhacaysa inaad isla keeni weydo marka sheekhu dhawa muxaram baa jirta dilxija ku jirnaa war waa bishee buu leeyahay masaajidka edmonton oo dhex fadhiya nin odaya yimid aniga daacadda wallahi iga ahayd wuxuu yidhi bisha mawlid meeqay maraysaa wallahi inaan bilaha ka oran aniga markaasa igu horreysay waxaa waana yaraa bisha mawlid meeqay maraysa hadda maa bil mawlid baa qaran aniga wuxuu soo muslim ma tihid nin odaya soomaaliya weeyaan waxaan ha intaan marka boodaan wax soo qabta kalandarkaa soo qabta kalandarkii baan fiirshay bilima u tirshay wax mawlid kuma jirto marka dad soomaalidu bila magac u yaqaanaan laakiin dhibku ka dhacay hadhow waxa iskeeni weynaya bilaha carabiga ay kuwii soomaaliga iskeeni weynaya magac xogaa qalta baa la isleeyahay alxaasil waxaan ku jirnaa bisha muxaram soomaali u yaqaanaan zako maantay waa talada tusriya sooma maanta bisha waa 8 berri waa arbaco 24 juun 2026 waxay ku beegan tahay 9 maalinka tobnaad baa loo dan leeyahay loo yaqaan yawm ashura oo maalin bisha muxaram ay 10 tahay oo maalinka khamiista oo bisha juun ee sanadka ku beegan tahay hadda 25 insha Allah taala nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay qofkii sooma in loogu dumi dhaafayo maantaas hal sano tagay dambigiisa Allah maxaa uga baahi badan ilaa noo dambi dhaaf hal sano dambigiisa aan xaqaya inkastoo cumud aan dambi yar ka weyn laakiin insha Allah taala ka weyn ilaa naga tara rajaynayna bishaas marka maalinka tobnaad baa la soomaa kaliyan ma soonne yuhuudda waa noo soomi jiray way soomaan si marka looga leexdo oo looga duwo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay inaan koobiyeyno isku ekeyno waa laga dheeraada waa la nahiyey nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dari doonaa maalinka 9aad laakiin ka hor ba ilaahay ofsay subxaanahu wa tacaala si kasta ha ahaatee haddaad ku dartid maalinka arbacada waa fiicanta haddaad tira mee waa daalanahay waa shaqeeya dhibaa aniga maalinka 9aad kaa fakara insha Allah tacaala arbacada ballan maa lee ku dar dheer jumcada ku dar insha Allah tacaala daawoodu haddaad awoodina maalinkaa soonto ilaahay subxaana wa tacaala inuu noo dambi dhaafan rajaynayna oo ilaahay kaa aqbalo subxaana wa tacaala maalinka khamiista ee bishan juun ay tahay 25 waa maalin aad u fadli badan ana aad ugu baahi badan nahay qofkii soomi kara ha soomo dadka hal gaarsiiyo marka saarna sanadka muslimka waxa ka buuxa khayraad fara badan ha waxaan hadda soo dhaafnay soomahayn carafo ha bisha carafo taariikh ma dilxija 9keeda baa la soomaa 2 saanood midhaaf Allahu akbar dad baa ogeyn ba ma yaqaanaan inaad taqaanaan alxamdulilah inaan noo sheegay alxamdulilah dad baa ka dhintay oo soo gaareen marka hal laga faa'iideysto maalmaha iyo bilaha iyo sanadkii tana kala barta hal la tir waa laga dhac ugaarsadaa waa duu waxa ka dhac ugaarsadaa bara maalmaha insha Allah taala sanad kala barto hal laga faa'iideysto insha Allah taala marka bariyo 4 qof soomi kara ha soomo qof soomi waayana ha ku dhago maalinka khamiista insha Allah taala xoog saaro maalinka khamiista ay ka baxsaneen